reer galmudug waxaa matali kara keliya marka laga tago dee xagga geesnimada dee xagga hambaliyada ama xafladaha waxaa u qaabilsan hablaha ugu shidan waxaa weeyaan galmudug mid baa wuxuu yiri saaxiibo aheen dee wuxuu yiri maamulada waxaa ugu kubsooro fiican ama ugu ku fiican dee galmudug su'aal baan ku celiyay waxaan dhahay galmudug caadi maahe u dhiibo waxaaga soo ma السلام عليكم أهلا ندي السلام وأنا جوا خالد إسماعيل وعيبي مقالكم على قصصين هاي همبليو أو قصصين همبليو ذا قل ملوك سيدا ولقنا هاي ما مولية هاي حفلة أو سنة قراءة هيرشوا حفلة دي كله مشي كريه لكن بدلان قل ملوك بابشان الهاي بدلان قل ملوك ودرس بدلان قاعدتي أو واحد من قل ملوك لكن قل ملوك maamulada kale aad bay ugu duwan tahay waayo xafladeeda waxaa lagu kharash gareeyaa ugu yaraan 500,000 milyan wadan maaha ugu waa maamul goboleed kaliya ugu kharash gareeyaa milyan oo dollar waa deegaanadoodana waa deegaano shidan Soomaaliya waxaa ugu filo qurxan marka laga tago filna Soomaaliya ee madaxweynaha uu galo Soomaalida marka laga tago maamulada kale filada ugu shidan baa ku taala sawirada filada hadaan ku soo bandhigo bal waa kana heedaa film ya mش waxa qasay ana waa fahmi waa reer galmudug waa shan sanadkan waxa idin leeyahay hambaliyo waxa weeyaan cid xamaasadaatiin cid boqortooyadaatiin u fahamtay dad badan baa waxay leeyihiin galmudug qabiil baa dega walaal qowmiyad baa degta qabiil kaliya ma dego Soomaalina way deganto sheer ijlaa galmudug way u sameeyeen hafiirin kuraasti waxaad fiirisaa isdhexgalka bulshada warka aad ay salaam bye bye cid xamaasada galmudug